wadankii deegaanada qaar ma yaqaanaan cidii garanaysa sida weeye marka adigu ninkii uu la tagay inta badan markuu aan doonayo inaan gabadh la tago dhaqankeena wiilku wuxuu soo kaciskay wiil saaxiib oo gabadha la kaxay gabadha laakiin ilmo soo kacaysan أو ها فوق عين ما محيس بالحيس أروس كانوا قانا قاري عمو نقال أقول في واحد سدية كاب بدنا نايل لكن نق ترتن كجهرس لا يرى يريد سكوجي ترتن كيفن بلونا ما كهراو كلا على النهاية مسجى ويجا مسا كذا والله بالله يرتع نتكلم داورين كلنا وحش شيء وحون قبلوني واي إن شاء الله بالبلانس دير سكيرنا بلا شيء أكو بلا بنا هذا كور برضو واحد ويليا قبل استعلا عشان كذا كور كولا بحس ويليا قبل واستعلا جاري سعدي لا شنصة استعلا ما شاء الله مركا وحا sheekadu ay macnaha ku macaaneeyeen qarabka qaabka ay ku bilaabantay wiil iyo gabadhu waxa la iska bartay qaybta aaladda internet social media ay saadeen adu sheeko 2 sano iyaduna ayna arkin isaguna arkin sheekadu waa bilowga labadii sano u horeeyay ismaaca Allahumma barik adu sanadkii saddexaad bilowgiisii baa wiilkii safar soo galay magaaladii gabadha beddelay wala marka wiilku macnaha sheekadu sheeko ka dhacday ma ahayn Afrika sheeko Yurub ka dhacday qurbanacas marka wiilku wuxuu damcay inuu iska daayo meesha isagu taganaa oo gabadha meesha ay degantahay agteeda inuu shaqo ka raadsayo wala uuna qabin laakiin haddana dee jacaylka ka soo dhawaado yani intaa safarka dheer soo galay waxba soo wadi gabadha waxay ku tirniyo inta aad soo dhawaan lahayd iyadoo la iska xiiso meena ka wanaagsaneen bartaada iga joogto yar kala fogaana yani waqtigii la isku yar xiisay in la is arko la kala noqdo dacdeen waa ragan marka wiilkii waa ku tirniyo 2 cisho chance si soo fikiray marka uu tagay tawaad ka maqnaa labadii ka baxsay wiilkii marka wuxuu ku soo go'aansaday inuu gabadha ka qaadiciyo inuu yiraahdo agteeda soo degaya gurigaana tan shaqana waraaqay gabadhana waxa ka go'an inuu arago isku badan oo qarasay yiri yani oo aan la kala xiisan wali gabadhu mayna siinin niyadeedu gabadhu si isku kaarta aad buu adag marka dabcan wiilkii wuxuu arkay gabadha inay ka go'an tahay inay shoogiisa ana soo dhawaashiis maalinka saddex ka soo baxo waxay arkaan weyn exactly marka wiilkii wuxuu gaasay taxaykiisa inuu ku raacado baankii ahaa marka wuxuu balda waayahay meeshii isku jiray go'aankaaga ku go'aankii ku raacay adigu 2 sano kala markii si loo sii wado ay gabadhii aragtay inay wiilkii jeclaatay markii horeyada diidinadu waxa tirmiyo inay soo guurtaan sheekadii uu bedelo marka wuxuu yiri anu hadda soo guuri maayo labada adag soo guurayay marka guuristiisa laakiin waxa ku lifaaqsan oreer wiilkan iyo gabadha iyo family-geeda iyo family-geeda waa iska waa la isku waa gabadha marka wuxuu surprise ka dhigay reerkiisa laha uu weydiistay wixii la yiri madaxeeda soo weydiiyay intii markaas surprise marka isagu uu weydiiyay marka isagu sidee yani sheeka dadbana uu weydiiyay ku xabiib bal ka waran lacala maxay noqon ya maxaad ka dhigi lahayd waxay heerka kaasay inuu horta fadhiga hal laga gaaray madaxayga waxa lacag buuran bay sheegtay xoog weyn doolar sheegi karin fahanti adu meelaha waxa qabsatay $10,000 waxa la iska cadeeyay baasha marka waxa dib ugu yar noqdo niyow meesha joognay nala fiiriyo dib ugu yar naqa sheekada kabacdi adiga gabadhiga hadalka ugu daalinay soo gunaanitay qofka ka soo qabtay shanta riyaal fadhiga diinaya shanta kala ya ma garaash wiilkii kamuu labaynta shawiyadu ka tumay ka haystaan wiilkii reerkii wacay gabadhii waa la hadlay intaas wiilkeedii marka iyadu ma oga iyada warka marka isagoo reer wuxuu rabaa inuu mehersado
يدان اوغين ويلو تيمادو ويسغي ay la degto ya sheekadii hore halka gurigeedii horena ka soo guurtay صح way tii gabadhii soo guurtay ay wax la soo hadlay hooyadii kala soo wiilkii uu nala soo hadlay sida ma isku tiraahdo wala soo nidee way ka fahmay uu ka dhaweeyay inta ka tiraahdo waxay waa dhamaa raali ma ka waxay oran kartaa ha waa aynu kala xasweyda waari ay ilaahay sheekadii maxay ku soo dhamaatay sheekadii gabadhu family way noqoto qurux badan oo kale iska argo ilaa hadda la isqabo carruur la iska helayo ma garanaysaa la isku farxay ما شاء الله wala tayniyo okay sheekada waa ka qorreeyay iyo la socdan doona sheekada wad maqlayseen codkiina inta dhibcada siinaysa idinka idin taala adiguna ni horta anu waxaan nii sheegaya sheeko yar oo ka dhacday Yurub tan waliba dhalinyarta iyo guurka waxa kala haysta Yurub ahaan baan ka sheekeynayaa waa qisadaba wiil saaxiibnahay ku dhacday Talyaanigu joogay adu markaa wuxuu Talyaaniga dadka baad aragteen dadka cusub baa soo gala hadiyo jeer waana meesha ugu gabadha badan marka gabadha la yani waa sayladii kawaanka lagu qaniyaadhay waa sayladii qaxootiga ka soo galay marka wiilkaas aad u hadalaya kugu daarinay Talyaanigaas uu joogay dhowr sano uu joogay wuxuu la kulmay gabadhaas uu soo dhaweeyay wuxuu geeyay meesha gaabu sidii hawlaheegii arrimaheegii uu dhameeyay arrimaheegii markuu u dhameeyay gabadhii wiilkii uu ka helay waxay go'aan ku gaadheen aduu muddo kadib markay isla socdeen inay aroos bayna ku heshiiyeen gabadhan waxay ka tirinay haddaad rabto inaad guursato ma raba in family-giinu ku ogaadaan family-giinu ay ogaadaan waxa qodba sirada loo yiraahdo siro la waa sheeko weyn sheekadaasi waa lama taabtaa weyn aadiyaad waa labadeena kaliya tayna sheekh yiri bal ya intii isku xaday hore isku marsanaa waa ku yiraahdo wallahi marka wiilkii iyo gabadhii waxay ku heshiiyeen inayna waxba faafinin labadoodu iska faataxaystaan odayar u tagaan waliba odayru uma tagin nin quraanka abu dhameeyay oo garanaya wadaad diinta uu yaqaan ay u tageen marka wadaadkii adu uu meheriyay wiilkii waxa qarash waa ka baxay hawl buu galay sheekadii yar uu dhameeyay asxaabtiisu u yeeray waa casuulay gabadhan waxay joogtaa magaaladaas ama wadankaas toddobaad marka uu aroosayo waa cusub tahay waa fresh toddobaad bay joogtaa toddobaad kaliya ay joogtaa kadib uu aroosay marka ka dhax galay sheekadu ma waxay ka soo bilaabatay qaybtii tahriibka maya wiilkan Talyaanigu jooga gabadha halkaas ku bartay oo 7 days marka ku bartay toddobaadkaas gudaheed buu ku habeeyay yani uu kaga dhameeyay inuu gursado waa taqaanaade warnimada waxay ahayd maya waxay jirta oo dhacda gabdho markay sa u yimaadaan laga hadal badiyo macnaheedu waxyaabaha aan la haysan inta baalnimada lagu sheegay wax kala ma aha rag iyo dumarba marka wada power mid unba power badan oo wixii hada la qaadan aad ya marka aad wiilkaas gabadhaas uu ku soo xirigeliyay toddobaadkaas ku soo xirigeliyay hawlahan oo ka dhamaystay gabadhii uu guursaday meherkii wuxuu ku saaxiibadii baa casuumay qarash baa ka baxay lacag baa ka baxay wiilka aad u waxa jirta wuxuu rabay inuu iskaga soo baxo Talyaaniga iyadana uu soo kaxaysto uu wadankan Jarmalka abu dhowr cisho sheekada soo u sheegayay oo arkay gabadhan oo hadiya jeer niman kale iyo dad kale la socota iyadu marka uu weydiiyo dadkan imika aad baratay ee la socota hadiya jeer waa ay tiraahdana wuxuu yiraahdaa waxay ka tiraahdaa waa walaalkay wiilkan sababta ila walaalihii ma yaqaano cideeda ma yaqaano cid mu weydiisan dadka ma yaqaano waa walaalkay bay ku tiraahdaa waa yahay iska dhaafaa saaxiibka abu dhowr cisho indii isku badbatay ninkii waa walaalkeeda waa heysay hatta isoo guriga jooga uu guriga ka maqan iska imaanaya uu jooga waa ayoo walaalkay iska deysay already waa dhawaatay ninkii wuxuu yiri aaminay waa walaalkii aba hadal ay kugu daalin markii bil ka soo wareegtay buu yiri doona ma baxayna wanagii inaan baxna rabnay waxaan aadaynaa Jarmalka way hay ku tiri ma uu shaqayn jiray shaqo iska aaday maalinkii labaad habeennimadii gurigiisa ku soo noqday naagtii ma joogto gurigii ka waayay uu raadiyay telefoonno wacay WhatsApp-keedii Facebook-geedii meel kasta ka wacay uu waayay gabadhii markaas asxaabteedii waa la waayay markaas uu yiri niyo waxa rabaa gabadhaydii ma aragteen ayuu asxaabteedii war gabadhaadii magaalada way ka tagtay oo hebel bay raacday waa hebelkii ay maalmahan ku arki jiray hadii jeer oo maxay ka daba doonto waa la isjeclaayo wiilkaas israaceenba oo naagtu waa qabaa la isku jeclaa
ما هي الحاسب وين كاسب ولا عسل ما هرحتك لفت ذي بين هاوي وبين واحد دوني سي تدبات كاي ودن كتوبتي مالك كسينا inay jidkii ku mar laa وضعي كمرتي transporter kii baa isaga laga dheereeyay وضعي كمرتي صاحبها sababta in guri degan weeyeen noloshu isku yaray daba dhacsan tahay ma sha Allah ku jiro gabadhii sidii buu wiilkii ku waayay wala meel kasta way ka bilowday meel kasta wallahi dumarow marna lugooyaa tin marna waxa tin baayay laga maarmaan weey marna marka wiilkaasi ma alla meel ka xayay waayay uu iska soo baxay wadankii naagtiisii buu ku waayay halkan isku dalkan ku qolanay wuxuu yiri marka naagna waan qabaa mana qabo يعني naag baan guursaday qarash baan galay waxaan doonaa sameeyay naagtina maanta meel alla meel aan ku sheego ma jirto ma hayo ma qabanaa awal ba muuqday de marka hore meher xad bay ahayd sheekadiisu baan ku dhaliyoone inantaas way ku diisay naag kan dhulka ka raacsan ma wallahi ar waxa oran lahaa horta fikir baan ka yarsi lahaa ninka yani waxna waa wax cashir ku ah oo macnaha ku tusaale qaadanaysa isaga imtixaan baa inuu ku waana qaato macnaha wax salfudeed kugu soo galay marnaba ku kortaba leedo ord bal inay marnaba saldhig aad xira dhigato ma noqonayo ma garanayso maraa salfudeed qorto ma weyn aad weyn salfudeedku muxuu salfudeedku xaawo jannadii ka saaree ruuxa sigaysa muxuu wala dhowraa sahan waa la iswada hoos mariyaa nin iyo naag ba sheekada waa dunya daawac waa la isku dhigaa haay dunya daawac sheekadii hore iyo wadii hoos dunya daawac xasuustay ayal joorweyn ayal joorweyn ninkan walahi billahi gabay gudbinaa sama war adu sheekadaadi aawe haya war adu sheekadaadi aawe allahumma balwa hay ashakana ila ana keenay ma way uga adkaatay wax yar oo gaabaro laba yar oo sheekadu waxa yaa sheekadan ku diinana gabayga may diinaya ma jirto gabayga noo wadiyo adu gabayda beriba waxa jiray sheeko kan qabalay horta sheekooyinku way badan yihiin adduunyada sheekooyin badan baa ka dhaca waqti uu badan yahay adduunyadu waa iska qiyaasig ma ogtahay wallahi waayada kamid ah waxa jiray ilaahu ku naxariiso awkii arayadaas kala marka sheekaba sheekay keentaa waxa waayada kamid ah waxa jiray wiil iyo gabadh bay haayeen way isticlaayeen adigu reermii bay haayeen qurbaha kama dhicin anigu sheekada dib bay gadaal ugu noqonaysaa waayo iyo waqtigii Soomaaliyeed markii la deganaa guriga aqal Soomaaliga ah dadabta dumarka ay rag ku haasaawi jireen geedka dhinaca ka istaagi jireen ragga la qiimeyn jiray xigmadooda iyo hadalkooda waqtiga ayay ahayd wiil iyo gabadh baa isticlaa marka waxa dhacday bariga hore asliyan dhaqankeena wuxuu ahaa inay marka wiilka iyo gabadhu doonayaan is guursadaan ninka hantiileeraha way isku dhamaatay samaha way soconaya samaha way tahay hore uga soconaya okay sheekadii way noo socotay sheekadeed waxa qisaysaa waayo waqtiga wadankii joognay idnillah wiil iyo gabadh baa isticlaaday muddo sheekadii marka waqtiga hore la sheekaysan jiray taariikhda ku haysan geed bay inta reen cagsi istaagi jireen koox dhinaca marka caleemaha la guran jiray dhaqdhaq inta ka lagu sheekaysan jiray sheekadu sida u socotay marka baashaal isaga ahayd maalin dambe qofku markuu dan yar yahay wadankii ayaa waxa dhacda in la sameeyo qofku markuu dan yar yahay ma soo doonan karo sababtoo boqol halaad iyo qori baa laga rabaa barqabkooda mana hayo marka waxa la sameyn jiray gabadha wali la tigi wala ka xayla hadda way dhacdaa wala la tagaa dumarka wadankii deegaanada qaar ma yaqaanaan cidii garanaysa sida weeye marka adigu ninkii uu la tagay inta badan markuu aan doonayna gabadh la tago dhaqankeena wiilku wuxuu soo kaxay wiil saaxiib oo gabadha la kaxay gabadhu laakiin cilmi soo kaxaysan jiray أو ها فوق عين ما محيس ملحيس أروس كانوا قانا قاري عمو نكان أقول لك هذا كان حكله بربوكيري هاي ريتوت مقرر هابتبوت أروح يلقون هاي يودي بس كذا أيه أدو نكى وساق حسابين كوي بالله قبل الصورة مركا قاعد متشرو دمير لما راعي فردنا لما راعي ولا لقينا يا عمي لقاها يرد الله ما رأيه سبحانك يا عبد ما يدقن بان كهذا يعني deegaanadan ka yima ka hadlaya waxa ka xaqiiqatuuya marka wax soo kaxaysteen in la oran jiray kaba calaf oo saaxiibkii ah raggu xulay wuxuu isbi ninka ugu foosha xun la rag meesha soo kaxayso sababta ninka qurux badan oo ka ag yara ag ka soo gala hadda jiraan oo yani min aroos maanta ninka qurux badan ma soo jarab istaajin marka ninkii ugu liitay deegaankii joogeen buu soo xushay oo ninkaas alayla ugu liitay naagtu kama raacayso
markaa ninkii soo kaxay horta inaga dhex kala sheekadaas isku dadka caayina warwal caayina muxuu ahaa mixiisku mar walba waa qofka sabab qofka ugu dhow ka dhig walaal malxiiska ma hadlayo laakiin saaxiibada malxiisku waa kala gaar malxiisku waa arooska marka la fadhiyo qofka dhinac aniga dadweynaha ku daawanaya sheekada warwal saxaysan jiray sheekada anu malxiiska waxaan u aqaanaa ninka arooska markuu yahay qofka dhinac fadhiista ee la socda jaanu saasoo fahmeen ku sheekada kani waa wuu raacaya maaha qofku soo kaxaynaya deegaanku raacaya malxiiska waxa ka dhigan kartaa qof deegaanka la jooga leetigista waa waxa gabar bala soonan maysa gabadha waa dhacaysa waa xadaysa gabadha waad la baxsanaysaa gurigaad geysanaysaa markaad geysatid reerkii gabadha dhalay uma soo celin kartid sababtaa wax go-anayaan gabadh intaasoo bilood naga maqleen uma soo celinaysa marka khasab bay ku tahay inaad waxaad siisid ay qaataana gabadha ku meheriyaan ma fahmaysaa waa inay ku meheriyaan waxaad siisid qaata sababtaa waa si reerka loo xakameeyo si aan lacag badan u dalban ayaa gabadha loola tagaa marka ma la tegey aduu ninkii way soo raaceen ninkii ugu fash xumaaba soo kaxaystay way safarkii wada galeen way lugeeyeen markay muddo soconayeen ayuu ku yidhi way daadeen marka geed bay fadhiisteen way nasteen markay nasteen buu ku yidhi gabadhii baa tiri aan nasanno way fadhiyaana geedkii hoos fadhiya marka sid baa lagu nasanaya geed bay hoos fadhiyaana way nasanaysaa kadib gabadhii baa tiri aan nasanno kii gabadh la soo tegay soo boodeen mad waalantay caqli ma lahayn annaga fadhino nasanaynaba marsi kii kale yidhi war maaha saa kama wada waxaa leedahay aanu kabaha la baxno way nasanno haddaynu inagoo kabihii xilan fadhiisanaa nasanno maynu nasanno marka kabaha la baxno nafisna marka macnaha ku jira kabaha la baxno muhiim waa nasasho qofku markuu kabaha la baxo nas laakiin adoo kabaha xidhaa dad geed yar hor fadhiistida kacid maan nasan marka aynu nasanno marka adigu okay wili sheekadii kabii waa la baxay waa la iska nasay haddana safarkii baa la sii watay marka iyagoo is socday gabadha tiri allah reeraha halkan ka dhow intasaw eega gabadh la soo tegay ma caqli ma lihid halkaynu marayna ma arkin intaas saacadood baa soo soconay reer maanu aragnay markaasuu ku maya gabadha saa kama wada waxay aragtay sukiyaaliya shimbireer hawada duulduulaya shimbiruhuna waxay ka dhow yihiin meel ama bini aadan ama wax cunta ka bisha sidee gabadhiis ku soo almuhima markii ay soo safreen gabadhii gurigii la keenay gabadhii la doontay ee lagu gabadhii ayaa kula soo tegay ninkii telefoonka kii watay maaha saas la soo aaday nin qurux badan ma rabeen nin baa rabaa marka sidiiba ninkii miskiinka ahaa foosha xumaaya gabadh la'aanta haystay magaalada ku bahdilaa ninkana gabadha ugu soo kaxeeyay wala caswiyaan يعني شيكada halka waa daahir ya shamse sheekada waxa weeye halka ku jirtaa waxay tahay يعني ninkan gabadha la soo tagay gabadh waxay sameynaysaa tijaabo xigmad bay baaraysaa يعني qofka maskaxdiisa inta ay leeg tahay bay eegaysaa iyadoo la fadhiyo tiri aynu nasanno ninkii kale hore ka fahmay automatically ku soo dhacday yani in qofkan kabaha iska bixin si roof fiican u fadhiisan saxibkaana waa u fadhinaa nasiib sheegaysa waxay takala sheekadu sharaxaysana waxay tahay dhaqanka Soomaalida inta badan qofka in lagu xulan jiray kartidiisa iyo raganimadiisa iyo awoodiisa qofnimo aan lagu xulan jirin qofkan quruxdiisa dheeraantiisa cadaantiisa waxa lagu xulan waxa markasta lagu xulan jiray qofkan wuxuu sababta innaga aba furximo u dhalanay qurux waxaan ku leeyahay dadkii hore wax naga wanaagsan hadda dadkan jira hadda waxa weeye wuxuu ku arkay ku cabshan laakiin dadkeenii hore xitaa sheekada talantaaligu waxay ahaan jirtay macnihii wax xigmad ku dhaahantay oo ah magaranaysaa gabay waxaa laga yaabaa gabadhu geed halkaas qalinaysa isaguna halkaas gabay dheer rag laga sinayaa se gabadhu dhan gabay ugu jawaabaysaa sheekooyin badan baa inoo haray haddii heestahay waa sheeko waa sheeko cad caadi waa la iska hadlay haddii la sheekaynayo waxa weeye sheekada xitaa laba jeer ma dhaafo labada qof markay isticmaalaan sidee tahay xaaladda xawaasha guud marka la iska warayso iyo wixii kale waxay kula gelaysaa waa xal ma garanaysaa marka laakiin dadkii hore wuxuu xigmad bay ku fadhiyeen filxigan ka dhex galo sheekooyinku waa nagu badan yihiin maskaxdeena saas sheekooyinku ku soo qubanayaan laakiin hadda waqti uma hayno barnaamijka xigaan iyo ku soo duwi doonaa subxaanaka yaa cadiib wax laga yaabay waad mahadsantihiin ha hilmaamina inaad saddexdaa sheeka aan idiin soo teginay oo soo kala codaysaan qaybta commentiga waad mahadsantihiin dhammaantiin aad iyo aad baa idinku mahad celinayna qalbigaan ku salaamay soo maaha qalbiga maaha weliba calaamadda yare casnad bahalka madaxda inooga biiya qaybtii hindiga maxay yidhahdaan
marka qaybta yare hoosena casaanka ana ka hilmaamin inta subscribe like comment share waxa kale tiraysan barnaamijkan hadda sida caadada ay maanta waxa inoo marti ahaa saaxiibkeen Cabdi Shakuur Fadxi oo aad halkan ka daawanaysaan anigoo Axmed Baqaya insha Allah halka ka daawanaysaana waa Maasin iyo Axmed iyo Baqaya Maasin Zayn subscribe hal yiraahdo Axmed Baqayo waa laba qof ah ka dhaxayso insha Allah midka soo halka ka heshaan xaq kalena waa ka helaysaa wadaasan Ramadan Kareem afradi baan nagu soo dhawaa أرتدي أو لما والسلام يا مدرسة المسلمين تمام تستير شوفته رمضان مبارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل أحسن هل شيء كلام هل من يدو كلام دون ناقد أدو هذا نسك على ميتين وحسبين أنت رفرنتي أدون يدو كنا جالس هل مرة الريكوردك اللي يقول علي هل مرة ويسعة هذا ويسعة هاي كتر كسر علي ولا بس إنه هو